Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kani waa casharka koowaad ee taxanaha cusub ee aan halkan ka bilownay insha Allah. Taxanahan waxa uu noqon doonaa kii aad luqadda Ingiriiska ku baran lahayd hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Maalin kastana waan soo gelin doonaa barta YouTube-ka biidnillaahi ilkariim. Haddana kusoo dhawaada casharkiisa koowaad. This is a photo of Frank and Emily Wilkins. This is a photo of kani waa sawirka Frank and Emily Wilkins. Kani waa sawirka Emily iyo Frank. From Toronto, kuwaasoo ah reer Toronto. From Toronto, kuwaasoo ah reer Toronto in Canada oo Canada ku taala. From Toronto, Canada, kuwaasoo ah reer Toronto oo Canada ku taala. Toronto, Canada ay ku taala. They are on vacation. Fasax ayay ku jiraan in New York City. Magaalada New York ayayna joogaan. They are on vacation in New York City. Fasax ayay waxay ku joogaan magaalada New York. Emily is from Canada. Emily waa reer Canada. And Frank is from Seattle in the US. Frankana waa reer America ama Maraykanka, magaalada Seattle, reer Seattle weeye. They are married. Waa isqabaan. They are married. Iyagu waa isqabaan. Emily is a teacher. Emily waa macalimad. Her school is in the center of Toronto. Her school, iskuulkeeda is in the center of Toronto. Waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Toronto. Frank is a doctor. Frank waa dhakhtar. His hospital, isbitaalkiisa is in the center of Toronto too. Sidoo kale dhakhtarkiisa waxa uu ku yaalaa ama isbitaalkiisa bartamaha magaalada Toronto. This is a photo of Frank and Emily Wilkins from Toronto in Canada. They are on vacation in New York City. Emily is from Canada and Frank is from Seattle in the US. They are married. Emily is a teacher. Her school is in the center of Toronto. Frank is a doctor. His hospital is in the center of Toronto too.